Halkani waa Dunida Media daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan Dunida Media. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 27aad oo howlgalo kala duwan weli ka wada deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay la wareegeen deegaanka Hees oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolkaasi Hiiraan. Saraakiisha ciidamada guutada 5aad ee qaybta 27aad ayaa sheegay inay ciidamada dagaal kula wareegeen deegaanka Hees isla markaana ay burburiyeen saldhigyadii ururka Al-shabaab ee deegaanka Hees. Sidoo kale waxay sheegeen inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sii wadi doonaan howlgallo ka dhanka ah ururka Al-shabaab oo ay ku fulinayeen deegaanada hoostaga degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo dhowr jeer Al-shabaab weeraro kala duwan ka fuliyeen. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa ciidamada ku bogaadiyay guulaha ay ka gaareen howlgalka, isagoo ugu baaqay inay sii wadaan ilaa iyo inta ay ka saarayaan guud ahaan deegaanada gobolkaasi Hiiraan. Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay wehelinayeen maleeshiyaadka macawiisleyda waxa ay howlgallo ka sameeyeen deegaano hoostaga degmooyinka Matabaan iyo Maxaas, iyagoona deegaano dhowr ah la wareegay. Waa tahay daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen Dunida Media. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay janaalka, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, sidoo kale gambaleelka furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba aan halkan kusoo gudbino, una sii sheergaray saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba guud ahaan caalamka. Waa tahay daawadayaal, waxaad weli markaasi daawanaysaan barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanaysaan Dunida Media. Haatan xubnaha ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigoodu yahay magaalada Jiddah ee qaramada Midoobay ayaa ku biiray xulafada Soomaaliya oo ay ku jiraan Mareykanka, Ingiriiska, Masar iyo Turkiga, iyagoo cambaareeyay weerarkii Al-shabaab ee Hotel Xayaat kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 21 qof. Ciidamada booliiska iyo militariga ee magaalada ayaa Axaddii shalay ku dhawaaqay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay soo afjareen weerarkii Al-shabaab ku qaadeen Hotel Xayaat, isla markaana ay kasoo badbaadiyeen 106 ruux oo ay ku jireen haween iyo caruur. Xuseen Baraahim Taha, xoghayaha guud ee ururka OIC, ayaa muujiyay sida uu u cambaaraynayo falkaasi foosha xun, isla markaana ay garab taagan yihiin qoysaska dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Wuxuu ku celceliyay mowqifka madba'a ah ee OIC ee ka dhanka ah argagixisnimada nooc kasta iyo muuqaalkeeda. Xogayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay weerarka sida lagu sheegay war rasmi ah oo uu soo saaray oo lagu sheegay in qaramada Midoobay ay taageerto dadka Soomaaliyeed la dagaalanka argagixisada iyo socodkooda nabadda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale si kulul u cambaareysay weerarkii Al-shabaab ay ku qaadeen Hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho. Waxay xaqiijisay mowqifka boqortooyada ee diidmada dhammaan noocyada rabshadaha, xagjirnimada iyo argagixisnimada, muujinta tacsida iyo dareenka qoysaska dhibanayaasha dowladda walaalaha ah ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. Waa tahay daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen Dunida Media. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay janaalka, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, sidoo kale gambaleelka furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba aan halkan kusoo gudbino, una sii sheergaray saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba guud ahaan caalamka.